السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أصحابته هل كان يقدر ونساه ميل والبوا شوكتان يسولبو مقال كيجو ومركا إدين سو قاريبه مقال كان وحنو كجاه ضيناه رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو إلا يحد الله ما حيو وحلا وحي مقال لها أو إسرائيل إشاعين سي سعدي حد الله صودا في أي وحدة ما تود بنقونا يعني أما أيهين مقالو أي قلقل كإسرائيل هايسته وأيدون يان إن مركز عالم ككوغن عيان in Benjamin Netanyahu aysan waxba soo gaarinna waa midkii ugu sareeyay ilaa iyo heer hadda waxay marayaan waali ah markii la fiiriyo nooca muuqaalo oo ay ku shaacinayaan barta uu Netanyahu ku leeyahay X-ka iyo waliba TikTok-ga sida daraadeed waxaynu muuqaalkan aynu ku fiiri doonaa ilaa iyo 5 muuqaal oo ah kuwii hadda ugu dambeeyay oo Israel ay faafisay isla markaana la yiri Netanyahu waa nool yahay ayaynu dul istaagi doonaa waxaana idin tusi doonaa waxyaalaha muujinaya muuqaaladan dhamaantoodba inay AI yihiin iyo inay muuqaaladan ay yihiin dhamaantoodba kuwa fake ah waxaan hubaa wixii muuqaalkaygan maanta ka dambeeya inaad aragti dhab ah aad ka heli doontaan waxa ay muuqaaladan ay yihiin iyo waliba sababta inta badan ay dadku ugu dhagan yihiin muuqaaladii hadda ugu dambeeyay ee lagu soo yaaciyay baraha uu Netanyahu ku lahaa X-ka iyo waliba dhankaas iyo TikTok-ga soo dhawaada meel walba joogtaan iyo solba muuqaalkaygu oo markaa idin soo gaariyaba waa 18 March 2026 waana markii ugu horeysay in maanta hawada aynu ku kulmayno fadlan channelka subscribe gareeya si aad ula socotaan muuqaalada xasaasiga ah oo aynu halkaan ku soo gudbinayno maalin walba iyo waliba goor walba aad ayaad mahadsantihiin ma jeceshay waalidka inaad u samafasho mase doonaysaa inaad u hadiyadayso waalidiinta hadiyad qiimo badan mase ogtahay in cumrada Ramadaantu ay u dhiganto xaj haddaba shirkadda Al-Mustaqbal ayaa $300 oo kaliya kaaga soo cumraynaysa waalidka tobanka dambe ee Ramadaan iyadoo lagu soo duubayo fiideo laguna ducaynaya adiga iyo waalidkaaba laguna siinayo shahaado rasmi ah iyo biyo samsama haddaba hore u gaar fursadani qiimaha badan kala xidhiidh lambarada shaashada kaaga muuqda haddii aan bilaabo maalintii la waayay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxay ahayd 3 March 2026 bishan maanta aynu ku jirno oo 18 ah saddexdeedii ayaa la waayay markii ugu dambeysay oo caadi loo arkay Netanyahuna waxay ahayd xilli uu booqanayay goob ay ku dhaceen gantaalada Iran oo si xun markaasi loo burburiyay ayuu booqasho ku taga wixii inta ka dambeeyay ma jirto muuqaal rasmi ah oo lagu qanci karayo oo aan AI ahayn oo Israel ay shaacisay oo ku saabsan Benjamin Netanyahu ilaa iyo hadda ma hayno maalintaas saddexda bisha ay ahayd haddaan in yar aan ku dul hakado maalintaasi waxaa dhacay arrimo badan oo shaki muujinaya qalqal xoog leh ayaa ka dhacay meelo kala duwan khaasatan dalka Mareykanka tusaale hore waxaan idinku sheegay in xogayaha maaliyadda oo interview ku jiray in loo yareeyo liir madaxweyne Trump ayaa ku raba soo bax saacadu markay ahayd 10:22 daqiiqo oo subaxnimo kadibna uu soo laabtay 12 su'aalihii interviewgiina uu ninkaasi ka dhex muujiyay qalqal umada shoog galiyay marka taasi waxay ahayd dhacdooyinkii maalinka dhacay ee shakiga abuuray qalqalkana uu ka muuqday ayay ahayd dhacdo kale ayaa dhacday oo aan dib ka ogaaday oo maalinkaas saddexdii bishii ahayd dhacday laakiin aan dib ka ogaaday waa madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump oo maalinkaas warbaahinta la hadlay isla markaasna shacabka u sheegay dhibaatada uu Iran u gaarsiiyay ayaa waxa hadalkiisa ka mid ahaa in dad reer Iran ah oo aan lugo iyo gacmo midna aan lahayn ay wadooyinka ay wareegayaan hadalkiisa ka mid ahayd ma garanaysto qof aan lugo lahayn iyo qof aan gacmo lahayn oo haddana wadooyinka u wareegi karayo ma fahmayno people that died through the roadside bombs, died and are right now walking around with no legs, no arms, a face that's been so badly damaged. وهذا الأسوأ maalinkaas ka soo baxay afka Donald Trump inkastoo Trump nin aan baadhiiqa ka dhex bixin uu yahay oo qalqalkiisa iyo kala hadalkiisa iyo hadaladiisa waalan ay badaan ay yihiin laakiin haddana hadalkaas wuxuu ahaa mid maalinka dhacay waana hadal kale oo uu qalqal ka muuqdo marka laga hadlayo dhanka Washington markaynu halkaas uga soo gudubno qalqalka Washington muuqaaladii hadda la shaaciyo dhan waxaan oran karayaa waa AI iyo sawirro loo bedelay qaab muuqaal ah iyadoo AI marka laga dhigayo iyo hal muuqaal oo ah muuqaal hore ayaa ku jira
markii aan fiiriyo fahamkayga shakhsiga ah ee shantii muuqaal ugu dambeeyay ayaan midba yar ka dul istaagaya si aynu bal u xaqiijino in dhammaantoodba ay AI yihiin ilaa haddana aan lahaynin meel uu jaaniye cirib dhigay Benjamin Netanyahu muuqaalka ugu horeeya waa muuqaalkan waa muuqaal AI ah meel badan ayay ka muuqataa inuu AI yahay time badan kuma luminaya hal qodob baan ka dul istaagaya markii aad fiirisaan xilliga uu Netanyahu uu jeebka uu gacanta gelinayay jeebkii markii uu gacanta wada geliyo oo dhan ayaa jeebka qaybtiisa kor ayaa isa soo daboolaya jeebkii marka qaybtiisii kore ayaa inta isa soo daboola ayuu gacanta cover gareynaya wuu daboolaya gacantii marka la idin kugu celiyo markuu gacanta jeebka geliyo jeebkii ayaa asaga inta is amra oo isa soo qaada ayuu gacantii soo daboolaya ma aanan arag dharka aan qabna nooca uma shaqeeyaan suurtagalna ma ahan wala arrin muujinaysa in muuqaalku uu yahay muuqaal AI ah waa mid kamid ah waxyaalaha lagu yaqaan qadaadka ay samayso aaladda artificial intelligence la yiraahdo marka hadii de jeeb noocaaya uu jiro oo saraawiisha iyo funaanadaha aynu qabno ay saa u shaqeeyaan de dabcan jeebkuna wuxuu noqonayaa marka smart pocket ayuu noqonayaa haddana weerariyay smartphone smart watch smart computer marka kana smart pocket ayuu noqonayaa waa hadii uu jiro jeeb saa u shaqeynaya laakiin muhiimadu waxay tahay inuu yahay muuqaalkan muuqaal AI ah intaasan ka taabanaya muuqaalka labaad hadaynu fiirino oo Benjamin Netanyahu uu dadka badan uu dhex joogo asagana error badan ayaa ku jira laakiin midka ugu muhiimsan ayaan ka dul istaagaya markii aad fiirisaan gacantan Benjamin Netanyahu faranti ayuu qabaa si aanu arkayno maaha wax qarsoon isla farantigan oo markii uu gacantiisa ay hoos tahay uu qabo meesha markuu gacanta saa u saartana farantigu uu baxaya xagee buu aaday ma naqaano marka qof gacantiisa soo foortay faranti qabay markuu meel saarteena farantigii u baxay asna waa arrimaha lagu yaqaano qaladaadka ay samayso aaladda loo yaqaano artificial intelligence haddii aan muuqaalkan islow idin kaga dhigo marka hore aan idin tuso markaan faranti buu qabaa gacanta markuu soo qaado halkan uu saarana fartu waa fartan faranti ba qabo haddii aad fiirsaan farta uu farantiga ku qabo waa fartan waa gacanta bidixda ah fartan ayuu faranti ku qabaa ayadoo dhammaystiran ayay meesha saaran tahay farantina ma qabto marka ay laalaadana faranti bay qabtaa xagee farantigii aadin lama garanayo waxaan se idin tusayaa marka uu farantigu uu cirka aaday ama markii uu farantigu uu meesha ka baxay ama marka uu isbaabi'iyay baan idin tusayaa muuqaalkan islow wax yar idin kaga dhigaya muuqaalkan haddii aad tartiib u daawataan waxaad arkaysaan halkaan markuu marayo inuu farantigii uu baxay oo aan la aqoon meesha uu aaday laakiin intii ka horeysay faranti buu qabay this point markii la soo gaaray ayuu farantigii uu cirka aaday taasina waa muuqaalka labaad oo aan rabo inaan idinku xaqiijiyo in muuqaalkan uu yahay muuqaal kale oo artificial intelligence ah muuqaal kale oo AI ah muuqaalka saddexaad haddii aynu dul istaagno asaguna waa muuqaalkan waa muuqaalka uu la socdo safiirka Mareykanka u jooga Israel ninka Huckabee la yiraahdo ninkan ayuu la socdaa markii aad soo dhaweysaan wajiga ninkan Huckabee la yiraahdo oo ah safiirka Mareykanka u fadhiya Tel Aviv wajigiisu sida laastigii ayuu jiidmayaa markaysa ma arag anu qof bini aadama wajigiisu uu marna saa u jiitamo marna saa u jiitamayo markii la soo dhaweeyo marka waxaan isweydiinaynaa de Huckabee wajigiisu ma lastig ba ma plastic ba ma glue ba ku jira we don't know laakiin waa arrin kale oo muujinaysa inuu muuqaalkan uu yahay artificial intelligence isla muuqaalkan haddii aynu mar kale ama meel kale aynu ka fiirino marka aad fiirsaan marka isa salaamayaan labadan nin gacmahooda waxaad arkaysaan afarta farood oo Benjamin Netanyahu marka uu gacanta kala geliyay way wada muuqdaan laakiin second kadib gacmihii afarta ahaa ama farihii afarta ahaa saddex ayay noqonayaan war fartii kale xagee aadama naqaano aan idin kugu celiyo marka hore uu salaamayo gacmuhu waa afar kulligood caadi bay u muuqdaan laakiin labada gacmood si fiican marka isku galaan oo ay dhab isku dhahaan oo salaantii ay complete noqoto Benjamin Netanyahu farihiisu saddex ayay ku soo laabanayaan oo fartii afraad meel aadama naqaano ma la goostay balaaya qaadatay ma gantaaladii la sheegay Iran baa la kacay we have no idea ayadana waa arrin kale oo isla muuqaalkan ina tusaysa inuu muuqaalku u yahay artificial intelligence ama muuqaal AI ah muuqaalka afraad haddii aynu fiirino
ama aynu ku dul hakano muuqaalkan muuqaal laftirkiisu waa AI maaha muuqaal sax ah sawir 2025 ka ahaa oo sawirkaana ayaa laga generate gareeyay sida la aaminsan yahay oo laga dhigay video laakiin error xoog leh oo tiro badan ayaa ka soo baxay waxay isku dayeen muuqaalka inay dib u durjiyaan si hadii ay soo dhaweeyaan aan loo garan marka dib bay u durjiyeen miiskii bay dib u durjiyeen laakiin error tiro badan ayaa ka soo baxay errada ka soo baxay markii aad fiirisaan waxaad arkaysaan miiska hor yaala oo deskiga ah oo mikrofoonada iyo kombiyuutarada iyo alaabtu ay u saaran yihiin ayaa qaybtiisa xagga ah waxay yeelatay ventilations bay yeelatay weligay ma arag miis halkaas ku leh ventilation waxaa la yidhahdaa meelaha haydka iyo IC-ga uu ka soo baxo guryaha miiskii ayaa hortiisa wuxuu ku yeeshay meelaha haydka iyo IC-ga uu ka soo baxo guryaha weligay ma arag miis lagu dhajinayo bahasha haydka iyo bahasha IC-ga uu ka soo baxo oo godadka ah waa error fashil ah waana arrin muujinaysa inuu muuqaalkan uu yahay artificial intelligence oo muuqaal caadi uusan ahayn oo fake uu yahay ayaduna ina tusaysa isla ventilation ka markii aad fiiriso oo soo dhaweyso waxaad arkaysaa in hal miis ay labada dhinac kaga kala dhagan yihiin laba nooc oo kala duwan oo maxaa la yiraahdaa oo ventilation ah ayaa ku dhagan midkaan gudadkiisa waa yaryar yihiin midkaan gudadkiisa waa weyn yihiin shuqul isku mar waa laba nooc marka hal miis xataa in laba bahal oo aan shuqul isku lahayn lagu dhajiyaa ayaa ayaduna waxay tahay waxyaalaha aan sida caadiga aan dhicinin way xataa miisasku kala rahan iskuba aadana mana jirto sabab iyo cid ku dhagsata miis maxaa la yiraahdaa gudadka IC-ga meelahaas lagu dhajiyaa oo guryaha ay ka soo baxaan kor baa lagu dhajiyaa oo ay ka soo baxaan laakiin miiskan hadii la bedelo xagee la geeyay muxuu yuse heatka siinaya yuse qabowga siinaya xagii u sii jeedaane ma jinni buu siinaya ma wariyaash iyo qolooyinka kaamirooyinka ayaa heat lagu furaya laasan waqda way hadii xataa xagga heat meel kaamirooyin yaalaan oo warbaahin la rabo xafiisa oo rabo muuqaal in la duubo hadii xataa tashuush iyo heat lagu furo ama IC lagu furo mikrofoonada xataa shucaac baa galay wax shaqeeya ma marka waa mid ka mid ah hadana qaladaadka ay samayso aaladda AI-da la yiraahdo oo muujinaya inay waxaanu ay yihiin artificial intelligence dadka reer galbeedka ah dadka wax yaqaana dadka IT-ga bartay ummadda oo dhan ayaa ka qaylinaysa baraha bulshada oo dhan Israa'iil waxa ka haysta fashil xoog badan baa ka haysta wax walba ay soo saaraan daqiiqad yar bay qaadanaysaa in la dul istaago oo la sheego errorka iyo qalaadka markaas ka muuqda Israa'iil marka chief iyo joogba way ka tagtay daqiiqad bay xirta ummadda inay ugu qanciso ninkan inuu nool yahay xagee buu jiraa ma naqaan waxay keenayaan muuqaal qofka wajigiisa u jiidmayo waxa la keenayaa muuqaal dadka jeebkoodu uuba ismaad yahay asagoo xirayo waxa la keenayaa muuqaal farantigu uu disappear noqonayo waxa la keenayaa miisas godadka heatka ku dhagan yihiin oo kala nooc ah so many bullshit bay keenayaan marka lama yaqaano halka uu Benjamin Netanyahu uu jiro ilaa haddana lama hayo muuqaal rasmi ah oo lagu qanci karayo oo muujinaya nolosha Benjamin Netanyahu waxyaalaha sidoo kale fashilka sii muujinaya ayaa waxay tahay maalintii shalay ahayd saddex sawir oo kala duwan ay Israa'iil ay faafisay si ay u muujiyaan in Benjamin Netanyahu uu nool yahay saddexda sawirba shuqul isku male mid dhar noocaan uu qabaa mid dhar noocaan uu qabaa mid dhar noocaan uu qabaa mid wuxuu qabaa suit madow iyo tie blue abu qabaa mid kale to suit yara gray abu qabaa kind of blue ama blue dark iyo tie kale oo wuxuu qabaa red mid kale dhar kale uu qabaa hal maalin sidee qof saddex jeer oo kala duwan laga yaabo xafiiska inuu 8 saacadood ama 7 saacadood joogo saddex jeer oo kala duwan dharka inuu iska bedelo it doesn't work that way it's impossible waa shaki iyo tashuush iyo qalqal tiro badan oo Israa'iil ka muuqda maadaama ay qaadi la yihiin culayska ah xagee Benjamin Netanyahu uu jira arrintan marka waxay muujinaysaa inay wax weyn ay qaldan yihiin waxa qaldana ilaa haddana aan xog aan ka hayn haddaba waxaan ku soo koobayaa arrintan maxay noqon kartaa maqnaashaha Benjamin Netanyahu ama maxay fasiraada loo bixin karayo waxaan rabaa inaan idin sheego saddex possibility saddex scenario oo suurtagal ah inay sababayso maqnaashaha Benjamin Netanyahu ma garanayo mid ay tahay laakiin waxaan idin siinayaa the probability option 1 iyo option 2 iyo option 3 baan idin siinayaa optionka ugu horeeya waa in Benjamin Netanyahu uu cararay oo Yurubta iyo Jarmalka meelaha loo cararay
oo naftiisa la cararay isla markaasna la diidan yahay in la yiraahdo Netanyahu wuu cararay oo fulay dagaalka marka lagu jiro hoggaanka dalka inuu cararo waa arrin si weyn la isugu kirtaas garayo waa sababtii Zelensky madaxweynaha dalka Ukraine uu dharka tuutaha u qabay oo dalkiisa uu dhex joogay u diiday inuu cararo hadii ninka dadkiisa dagaalamaya hoggaanka uu cararo waa fashil iyo ceeb taariikhi weey marka taas waa suuragal inuu cararay oo uusan joogin Israa'iil si marka loo yiraahdo wuu joogaa in loo sameeyo muuqaaladan beenta ah waa suurtagalnimadaas intay la agtay ma aqaan qodobka labaad waxa weeye inuu dhaawac yahay uu soo bixi karinin oo istaal u yaalo oo ay wax soo gaareen sida daraadeedna loo sameeyo muuqaalada tirada badan oo fake ah si loo yiraahdo waa okay wax ma gaarinin suurtagalnimada inuu dhaawac yahay intay la agtay ma aqaan qodobka ugu dambeeyana waa midka dadka inta ugu badan ay aaminsan yihiin ah in Benjamin Netanyahu la cunay oo uu yaacay ama uu dhintay saddexdaas midkood buu ku sugan yahay ma jirto possibility kale oo afraad oo meeshan ku jirta ma jiro waa inuu cararay inuu dhaawacan yahay inuu dhintay wax kale ma jiraan Israa'iilna waxay ku bixinaysaa enerjiga ugu weyn inay muujiso intaas ba inaysan jirinin intaas uu tahay lama yaqaano way soo bixi doontaa waxa kale oo ognahay in ra'iisul wasaare hore Israa'iila uu 8 sano isagoo dhintay la qarinayay markii dambana ay Israa'iil ay samaysay scenario la yiraahdo koomu ku jiro 8 sano lama qarinayn markii hore xataa koomu ku jiro maysan oran jirin oo maxay oran jireen is okay bay oran jireen markii dambana waxa la yiri waa xanuunsan yahay istaalu ku jira waxa la sheegi jiray laakiin waxa hadda la ogaanayaa mar dhow la ogaaday in kaasi asagoo 8 sano ka hor dhintay Israa'iil ay ku haysay waa nool yahay istaal buu ku jira iyo caajisay Benjamin Netanyahu xaaladiisu maxay tahay ma garanayo adiga daawanaya maxay kula tahay muuqaaladan si aan kula wadaagay ku jirta dadkii aaminay inay muuqaala sax ah yihiin hadda se after analysis ka aan ku sameeyay waa maxay aragtida aad ka qaadatay mise wali waxaad aaminsantahay inay rasmi yihiin waa maxay aragtida la wadaag inta san muuqaalkan ku soo koobay dib isaga soo laaban waxaan ka tagay saan wadino assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh